الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ولا ليال أنا كما قرصونا مالمهن وحدول كني بلد كني صوماليا كالسعودة قيبة كميدة كل اسمها وحسوه دادد آدو حوق بدن وهو حلاقي وهو حدلي وهو حخربي وقار كودتك قحيي dadkaasi waa dad walaalaheena cadba isugu keenyal islaamnimo ina jamcinaysa qaraabanimo ina jamcinaysa oo Soomaalidu kulligood waa qaraabo waxa kuugu daliilade jamcan hadda inuu halkan isugu nimi wax yar bayna taraxa masaajidii kale waa kan nimi waxaanu isugu nimi waa qaraabada inaga dhaxaysa darteed waxayna kulminaya wadankeeni waxayna kulminaya luuqadeeni wax badan oo cawaamil ah وأنا كل من يسأيا كذا تاسي مركا وحي واجب كذا جيسا إن السنة حنو يسكال منه مركا ورث ضدك إلهي سبحانه وتعالى بن أبرينا وحي يجوبه بنيهن وإلهي سبحانه وتعالى إنه مصيبة كذل الغاضة إلهي وحنا هو يدير إنه كذل الغاضة إلهي سبحانه وتعالى أمني أمان وسيه قال ما يرى الله سبحانه وتعالى والنقضة قار بدن ضدك كم إذا عيال لواي ولا لا يهي سيدا هذا وركن لو شيء dadka la waayana Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu Ilaahay soo caymiyo iyagoo nabdoon ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiinina taas waa baahida koowaad ay u baahan yihiin waa inaan ku kaalmayno uga baahan yihiin labo yadul musaacada gacanta inaan u fidino maxaa yeelay hantiday haysteen waa baabaday badankoodii guryihii way ka dumeen ama way ka kharaabeen saadarteed waxa weeyaan wax badan oo taakulayn iyo caawinaada ayay markaa inuu uga baahan yihiin saadarteed waad u jeedeen hadda yaboohii la bilaabay inaan marka inuu ka qayb qaadano sadaqada iyo fadliga ay leedahana aad iyo aad bay u tira badan tahay halkan iyo khudbadan iyo khudbada kale lagu ma soo koobi karo laakiin daraf kamid ah nusuusta ku soo rartay insha Allah ta'ala ma wax ka sheegayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadkii Alle subhanahu wa ta'ala rumeeyayo waxaad bixisaan wixii la idinku quudiyay oo la idinku risaaqiyay inta aysan man maalin la aan la isbeecsanayn waaye saaxiibnimo ayeen jirin oo la isfuranayn ma u jeedaa maalinka ka hor bixiya maalinka intuu sanadin imanin maxaa yeelay maalinkaas waa maalin abaalmarin weeye laakiin maalin amal ma aha marka qofka waxa lagu abaalmarinayaa waa wixii uu horay adduunka ugu soo shaqaystay weeye alle wuxuu leeyahay ayad kaleeto oo taa ku macna dhow warbixiya oo nafaqeeya inta aysan midkuun geeridu iman ومركا أسرا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق إله يرمى الدمريسو مركي جيرد كنت معده ونفت هلك سو قارته حوله وهيستوي هذا إله دبي على أن صدقيسته مركان العلمية أتشي سيبا شوكت دبن أولا من مايو إلهي سبحانه وتعالى وحليه ذاتك إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس أخرية وصلاة أوغا وصدقة بحياة يرجون تجارة لن تبور وحيرجين أن تجارة أن بارح لهين وأن لغو خسارين إلهنا سبحانه وتعالى وجورته ذا ووفين يمان تقيامون نصوصا يقوك الله تربضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقران كبكب حدا وحين نقول هنا يساء تصدق إيه وحبحين توي واحد أوقاتا ورالك مسلم كاهو الانفاق في سبيل الله جد الله وحلقوا بحيه روح بني آدم كاه الدونك أنت وكنوا ليهاي تحدياتك هي وحيابها مشاكل شيء نفتي إنه كجد به لو جبه هي وواح أقوين أي كترتا وين بدنا نضد ويكون عن معك يا لي أرنك صوت محيته إلى بين عدي إنسان كي بني آدمكو آدم وحوش عليها حولها أيها ذوش عليها وتحبون المال حبا جما حولها واحد وش عشهن جعل الأرض تربضا صادرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحو كدغاي فتنة المال حولها ددكو inay ku fidnoobaan والنبي wuxuu yiri inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal hadiiska tirmidi baa wariyay sheekh al-albani rahmatullahi alayhi uu sahih yahay nabigu wuxuu leeyahay ummad kasta waxay leedahay fitno iyo waxay ku fidnoobaan oo ku halaabaan ummadeeda fitnadeeda iyo waxay ku halaabayaan waa maalka iyo xoolaha fitnada maalku meelo badan bay qofka uga iman kartaa tan hada sheegayna waa kamid ah qofkii inuusan xoolihi waxyaabihii ku waajibay
وصدق سكات المالكي أما صدقة المستحب كهي أما قرابة حريرتي قف إنه كجب خيره كهيسه وفتنة المال waxay ka iman kartaa qofku meel xaraan inuu ka soo shaqeeyo waa fitnatul maal waxay ka iman kartaa qofku meel xaraan inuu ku bixiyo waa fitnatul maal marka saadarteed nabigu saas uga digay ilaa nabiga uu cadeeyaba dadka qaarkood dirhamka iyo diinaarka adoon u yihiinba meesha ilaahay adoon uga noqon lahaayeen taayisa abdu diinaar wa abdu dirham wa abdu khamisa saas rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa hoogay adoonka diinaarka iyo adoonka dirhamka iyo khamiisaduna maray ahayd hadii la siiyo raali buu noqdaa hadii loo diidana uu carwada cirkiis mariya marka fitnada xooluhu walaalayaal way badan tahay qofku marka inuu ka digtoonaado oo uu wujuudi khayrka uu marka qofku ku bixiyo ayaa loo baahan yahay walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala markuu soo dejiyay qowluhu ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ayada quraanka birriga iyo samafalka gaari meysaan إلا أد كبحسان واحد أتعشين بري مفسرون ثم حيكون فسر دور قول ابن جرير مركو فسري جنة يقول مريه لن تنالوا البر الجنة جنة جاري ميسان إلا أد واحد أتعشين كبحسان مركو هذا تسودكتي النبي صلى الله عليه وسلم أبو ضلحة ويمي الصحابي الجليل وحول النبي الله وحن مغلي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون xoolaha igana waxaan u jeclahay bayruha baan ugu jeclahay beer bay ahayd masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam qibladiisay ku oolay biyo aad u macaan bay lahayd nabigu uu ka cabi jiray sallallahu alayhi wasallam timirna way ku beerayd timirteeduna aad u marmaaneed marka wuxuu yiri maadaama ilaahay leeyahay biriga gaari meysaan ilaa wixii aad jeceshiin aad bixisaan anigu xoolahayga bayruhaan ugu jeclahay fa hiya sadaqatu lillah tad'uha haythu shi'ta rasuulki Allah sadaqa ilaahay weeye ilaahay dartiisa uu bixiyay meel allaalay meesha rabta adoo dhig waxaan alla ka rajeynayaa macna waxay birigeeda iyo dhikhrigeeda waxaan ka rajeeyay Allah subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaam macna samafalkeeda iyo mawjeeda kaydka ama qarsashada aan qarsaday oo ilaahay dartii aan u kaydsaday ilaahay man ka rajeeyay subhanahu wa ta'ala nabigu wuxuu yiri maalun raabih wa xoolo faa'iiday ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam يعني أبو دلحة رضي الله تعالى عنه علم اليقين وحو يقين سنا حولها يمال كان ألا أدري سبحانه وتعالى وقفك الصومان تنتي ألا سيي مال انتو دلنا يهو يدي عيد شيء سقو مرشح وقاون عن وحبها يسن أي كون كيمي حولها إلهي سبحانه وتعالى بكو ديبي والله انت حامي يقفك اللو ديبي كان لغم الرئيسينا إلهي سبحانه وتعالى ومواين حوله استغنى وحوية والله انت حامي markan kan xoolaha haystana wujuudi laga rabay iyo sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rabay inuu u fuliyo oo ugu amal falo ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fiirinaya kana inuu ku sabro faqriga iyo marka dhibaatada ayuu fiirinaya marka saadarteed walaalayaal si aynu u gaaro jannada iyo fadliga tirada badan ee sadaqada lagu sheegay waajib waxa inagu ah inaynu ka faa'iideysano qofku wuxuu heli karo fursada ama qof sakadiisa ay waajibtay ama sadaqa kale oo dhamaantood marka way ku baxaysaa way marka inaanu ka faa'iideysano waa laga marman nabigu wuxuu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam sadaqadu inay tahay أهم المعيار والميزان الذي يقاس على إيمان المرء ميزانك يا هالبيجا وقومهم صنعقفك إيمان كيس الله عبر كره صادتنا نقوم حيري الصدقة برهان صدقته هو برهان هو حجة أي برهان على إيمان المتصدق وحي حجة تهي يمارك تاي عدين قفك متصدق وصدق سنية إيمان كيسوي محايا لي حواليها إنه سوى شاقني وابن آدم كوش على قفك إنه إسكاقو يوبحيه أرنك سدريل محي كوتاي قفك إيمان كوشرة إنه أرنك وحوية وككيريوي هدوسن إيمان جرين قفكو ده إنه حوالي إنت علاقه وكسو ديده كوهو شاضي إنه بحيا مسهلاتوي marka saadarteed saynu sheegayna Abu Dalha iyo rag la mid aha say marka tasadduqa u sameeyeen oo wuxuu bixinayeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala jidkiisa iyo dadka masaakiinta ee baahan ay u infaaqinayeen ayaa leenuga baahan yahay inaynu marka waxa weey runtii aynu uga faa'iideysano sadaqadu walaalayaal sidoo kale aadaab bay leedahay hadalka waa soo koobay insha Allah ta'ala uu dhamaaday aadaabta marka way tiro badan tahay laakiin waxaan ku soo koobsanaya oo kaliya labada aan isleeyahay ugu muhiimsan tahay qofka mutasaddiqa ee wada shaqaysanaya aadaabta looga baahan yahay labada aan isleeyahay ugu muhiimsan yihiin baan ku soo koobaya
mid hore waxa weeyaan maalka uu sadaqaysanaya waa inuu xalaal yahay maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala tayyib laa yaqbalu illa tayyiban ilaahay waa alla wanaagsan wax aan wanaagsanana ma aqbalo marka qofku maal xaaraana hadduu soo shaqeeyey ajarka aynu sheegayno iyo fadliga iyo waaye sadaqada waxyaalaha loo sheego tiro badan ma helayo marka arrinkaasi waa muhiim qofku xoolaha uu sadaqaysanaya meel xalaal inuu ka soo shaqeeyo xoolo xalaal ay yihiin way labo nuqtada labaad ugu muhiimsan waa al-ikhlaas qofku markuu xoolaha bixinayo sadaqaysanayo ilaahay darti inuu la jeedo way ha laga sheego hebel baa inta bixiye hal lagu yiraahdo iyo haddii alle makaasib adduunyo aad ku hesho meel kale tay wixii la midka ah arrinkaasi qofka waa inaysan ka hayn maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabal loola shirki yeelay ilaahay ma aqbalo subxaanahu wa tacaala marka ikhlaaskuna waa nuqdo asaasiya oo qofku markuu sadaqa bixinayo qalbigiisa iyo niyadiisa waa inay ku jirto oo kaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala darti inuu bixiyo raalli ahaansho ilaahay inuu ku raadinayo janna ugu weyn qofku wuxuu dalbee inuu janno alle ku raadinayo waxa kale masaalixda adduunka ay way soo raacayaan qofku hadii abu xanuunsan yahay caafimaad rabo ama qaraabo ka xanuunsan tahay ama wax muraad uu leeyahay way soo raacayaan qofku laakiin janna ilaahay ugu weyn wax uu diistay inuu jannada niyada uu ku qabsado iyo waxa weeyaan العزيمة يمر قان إلهي سبحانه وتعالى قفك كان واحد ونيستي هاي قفكو هدي موجودة كالسوني دي سألين وينتهي هدين كالسوني وينين وصدق مركب بحين ستطلب ملقا أقبل يا مهلي سواحي تهي وحوي والله يابا إني كاسو ده أما هذا بهن واحد نيستي لكن عزيمة هذا هي قان كاجا الله أتكو كالسون تهي إنه حقوي هي waxa kan ilaahay adunu yeesata saqada marka bixinayso boqolkiiba boqol inaad helayso niyadaada marka ay ku jirto weeyaan walaalahay marka arinta aan ka qayb qaadan insha Allah taala yar iyo weyn rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel dhamaanteen insha Allah taala